oo ka tirsan golaha shacabka gaarayeen ilaa iyo 16 xildhibaan waxaan wadnaa mooshin ajandaha wax loogu bedelayo ama ajanda kordhin ah yaan wadnaa marka waxaan codsanaynaa xildhibaanada inay si sharaf ah noo dhageystaan ogolaanshaha iyo diidmahana codkiina ay ku xiran tahay cid xoog isku marsiinayso ma jirto sidaa darteed marka waxaan idinka codsanayaa inaad si sharaf ah ku dhageystaan mudane gudoomiye mudanayaal sida ku cad qodobka 74aad faqradiisa 3aad xarafkiisa a waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa mooshin wax ka bedelid ajandaha maanta ee fadhiga golaha mudane gudoomiye mudanayaal inaga oo tixgelinayno muhiimadda uu sharcigan barakacyaasha uu u leeyahay shacabkeena guud ahaan gaar ahaan barakacyaasha maadaama uu ka shaqeynayo xuquuqdooda si ay u helaan xuquuq dhameystiran iyada oo la raacayo sharcigan ayaa waxaan guddoonka golaha iyo dhammaan xubnaha golaha shacabka si xushmad leh ugu codsanaynaa maanta oo ay taariikhdu tahay 21ka May 2025 in labada akhrin ee labaad oo aynu maanta u fadhino ajandaheeda iyo akhrinta saddexaad oo ay u gudbi lahayd akhrinta labaad kadib in aan maanta isku darno labada akhrin maadaama goluhu uu fasax geli doono dhawaan ama isbuucan gudihiisa iyadoo sharcigan uu golaha la yaalo ilaa iyo kalfadhigii saddexaad uu hadda sii marayo maadaama marka ilaa ay kalfadhi saddexaad uu yaalo oo uu maray akhrintii koowaad oo in muddo ahna loogu xayirnaa wax u qabashada shacabkaasi ku dhibaataysan gudaha caasimadda iyo gobollada qaarkood mudane gudoomiye mudanayaal waxaan rajaynaynaa inaad tixgelin doontaan codsigeena ku aadan isku darka labada akhrin ee labaad iyo saddexaad si isla maanta loo ansixiyo sharciga barakacyaasha kadibna loogu shaqeeyo xuquuqda barakacyaasha gudaha iyo gobollada caasimadda iyo gobollada qaarkood mudanayaasha soo gudbiyey mooshinka waxa ay kala yihiin cabdiraxmaan maxamed maxamuud mukhtaar maxamed guuleed maxamed cali xasan maxamed cabdi maxamed cabdisalaan xaaji axmed liibaan دكتور محمد علمي إبراهيم محمد محمود محمد عثمان محمد حادولة حسين محمد نور أويس محمد عمر محمود عبد الرحمن عمر علي حسن إبراهيم محمد أبوكر عبدي إسماعيل عيد محمد عبد القادر معلم عمر وما سنتين إنترنت بلاس وأذيك مع ميشو كهلي كران إنترنت فايبر وهذا اللي IPTV ولا صعد الرسيفر أي كجران إنك بدن 4,000 أو كنال إنترنت كجريها كشبه شن يلا $20 أو هيل إنترنت حواريه سوية هاي 20 ميجا بايت بر سكند يلا بقول دقيقة أو كهذا الجودها أما كشبه $60 أو هيل إنترنت حواريه سوية هاي 60 ميجا بايت بر سكند يلا بقول دقيقة أو كهذا الجودها إنترنت كحفيسية كشبه $50 أو هيل إنترنت حواريه سوية هاي 55 ميجا بايت بر سكند iyo 400 daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisa uu yahay 110 megabyte per second iyo 700 daqiiqo oo ku hadal gudaha